madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in wax lagu xumaado tahay in markale si micno darri loo daadiyo dhiigga shacabka magaalada Gaalkacyo halkaas oo laba kooxood oo iska soo horjeeda ay ku dagaalamayaan. waxaan ku baaqayaa in degdeg loo joojiyo dagaalka ka socda Gaalkacyo wixii khilaafaad ay jirana wada hadal lagu dhameeyo. Soomaaliya uma baahna colaad kale iyo dhiig micno la'aan loo daadiyo ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya. madaxweynaha waxa uu xusay in Soomaaliya ay ku jirto xaalad dib u heshiisiin iyo waliba adkeynta dawladnimada gaar ahaan doorashooyinka dhawaan dhacaya loona baahan yahay in laga fogaado wixii hanaankaasi carqaladeynaya. Soomaaliya waxa ay maraysaa marxalad xasaasi ah oo biseelka dawladnimadeena lagu qiimeynayo waana nasiib daro in iyadoo la wada hadli karo qori caaradiisi xal lagu raadiyo ma aqbali karno in shacabka loo horseedo colaad hor leh oo qarannimadeena burburin kara ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkan ku sheegay war saxaafadeed uu caawa soo saaray. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay maamulada Puntland iyo Galmudug inay degdeg gacan uga geystaan joojinta colaadda jirta isagoona mar kale xusuusiyay shacabka Soomaaliyeed inuu dhamaaday waqtigii isla xisaabtan la'aanta lana xisaabtami doono cid kasta oo carqaladeynaysa amniga dalka iyo waliba dadka Soomaaliyeed. عين في ضياء تنسيد تبسينا
gaarsiinayo danteeda taabsanaya dunida gaarsiinayo dadkayga waan jeclahay 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 maanta waan la garanayaa dhammaanta waan soodayaa maanta waan la garanayaa dhammaanta waan soodayaa dadkayga waan jeclahay dadkayga waan jeclahay dadkayga waan jeclahay dadkayga waan jeclahay